munaasabada Ciidul Adha ayaa si weyn loogu dabaaldegay dunida muslimka ah oo ku jirta Soomaaliya. Magaalada Muqdisho ayaa dadweyne aad u tiro badan isugu soo bixin fagaarayaasha lagu ooga salaada Ciida. Dadka degan magaalada Muqdisho ayaa u damaashaad tagay goobo ay ka mid tahay Beerta Nabadda. Kuwan waa qaar ka mid ah dadka u soo dalxiis tagay Beerta Nabadda waxaana wajiyadooda ka muuqda farxadda Ciida. Beerta Nabadda waa goob bilicsan waxayna ka mid tahay goobaha loo tago dalxiiska. Waa goob ay yaalaan qalabka caruurta lagu ciyaarsiiyo. Caruurta ayaa ciyaaraya iyagoo ay weheliyaan waalidiintooda. Halkan waa goob kale oo ay ku damaashaadayaan caruur wajiyadooda aad ka dheehan kartaan farxadda Ciida. Halkan waa bartamaha Beerta Nabadda oo ay u soo damaashaad tageen kumanaan ka tirsan bulshada Soomaaliyeed. Ammaanka ayaa aad u sugan waxaana halkan waqti qurux badan ku qaadanaya qoysas Soomaaliyeed oo qaarkood ka yimid qurbaha. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa farxadda damaashaadka Ciida kula qaybsanaya bulshada Soomaaliyeed ee isugu yimid Beerta Nabadda. Munaasabada farxadda Ciida ayaa ku soo idlaatay jawi qurux badan waxaana bahda midnimo media hambalyo iyo salaan hawada ay u marinayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada.